ku soo dhawaada video kale oo ka mid ah videoskii aan uga hadlaynay basasha iyo sida loo maamulo iyo cudurrada ku dhaca iyo cayaanaadka dhiba. Videogan marka waxaan uga hadlaynaa cayayaanka la yiraahdo onion thrips oo cayayaanada dhibaateeya beeraha basasha ka mid ah. Kolley dabcan sida dareemi kartid waa badan yihiin waana kala dhibaato badan yihiin. Kan wuxuu ku jiraa marka kuwa ugu dhibka badan ee beeraha basasha aadka u dhiba oo saameynta ku yeesha. Marka cayayaankan oo onion thrips ka la yiraahdo waxaa laga helaa adduunyada oo dhan ayaa laga helaa. Noocyo aad u fara badan oo kala duwanna wuu leeyahay oo dhacaanka iyo nafaqada ka dhuuqa geeda fara badan ee adduunyada ka baxa oo ay basashu ka mid tahay. Laakiin wuxuu si aad ah u weeraraa inkastoo geeda kale u weerara sida aan niri basasha iyo midka la yiraahdo leekska iyo toonta ayuu aad u weeraraa oo nafaqada ka dhuuqa. Marka onion thrips waa cayayaan aad u yar oo mararka qaar jaalaha ah yellow ah ilaa xataa black noqda. Laakiin taas waxay ku xiran tahay cuntada uu cuno nooca ay tahay ay ku xiran tahay midabka uu noqonayo. Sida aan sheegnana aad ayuu u yar yahay oo 0.8 ilaa 1.2 millimeter ayuu yahay size-kiisa oo dhanka dhererka ah ayuu noqdaa. Marka wuxuu jecel yahay intooda badan cayayaankan meelaha ciriiriga ah inuu galo oo hadda sida sawirka aragtidoo kale basasha qaybta banaanka intuu cuni lahaa badanaa wuxuu jecel yahay hadduusan aad u fara badnayn inuu meesha dhexe oo ciriiriga ah inuu isku majiiro uu galo oo halkaas uu wax ka cuno ayuu jecel yahay. Marka haddii aysan aad u fara badnayn basasha ayaa la kala sas loo kala durjiyaa kabacdi halkaas ayaa laga fiiriyaa haddii aragtid inuu joogo. Marka sawirkan aa ujeedidna waa cunitaankiisii oo maaragtay uu dhaawac u geystay oo cadcadkaas uu ku reebay cunitaankii uu cunayay wey oo basasha uu gaarsiiyey. Marka cunitaankaas wuu soconayaa wuu cunayaa basashii ilaa hadhow ay qallasho yellow isku bedesho kabacdina ay noqoto brown ilaa ay dhimato oo geedka uu dhinto. Cunitaanka ayuu ku wadayaa haddii weliba uu badan yahay. Marka dhibkiisa cunitaanka kaliya kuma eka cudur aan hore uga soo sheekayna oo la yiraahdo Aedes yellow spot virus ayuu keenaa iyo virusyo kale ayuu keenayaa oo geedkii uu ku ridayaa cunitaankii kaliya maaha dhibkiisa. Viruska kale oo uu keenana waxaa ka mid ah tomato spotted wilt virus mid la yiraahdo ayaa ka mid ah cudurrada uu keeno geedkan. Marka haddii aad iska qabatid cunitaankiisii oo nafaqada ka dhuuqayay basasha kaliya iskama qabanaysid virusyada uu la wareegayo dhan ayaa iska qabanaysa insha Allah. Haddii marka aan fiirino si kooban life cycle-kiisa haddii aan fiirino tusaale ahaan weliba marka hore anagoo usoo qaadano kale kaba soo qaadba butterfly-ga sida uu yahay. Butterfly-ga oo kale waa aragtay egg ayuu ka bilowdaa oo kun ayuu ka bilowdaa kabacdi caterpillar ayuu noqdaa kabacdi waxa la yiraahdo pupa ayuu noqdaa kabacdi ayuu duulitaanka bilaabaa uu noqdaa butterfly-ga. Markii isagana sidoo kale ayuu ka agdhow yahay oo wuxuu leeyahay 6 stage ayuu leeyahay. Ukuntii ayuu leeyahay kabacdi labo oo larval instars la yiraahdo ayuu leeyahay oo labo qayb oo iska agdhow ayuu leeyahay kabacdi ayuu wuxuu yeelanayaa markaas prepupa iyo pupa mid la yiraahdo ilaa marka dambe uu noqdo adultigi. Marka midkan oo prepupa iyo pupaha ciidda ayuu ku jiraa oo ku korayaa ilaa uu maaragtay uu adultigi noqonayo oo duulayo ciidda ayuu ku koraa. Marka waxaa muhiim ah in maaragtay basal hadaa meesha uga tagto kala camal in aad halaysan oo kale aadan meesha dhigin oo gubto ama aad dugto aad ka qaado si uu u yimaado uusan ukumihiisa uusan u dhihin. Marka sidee ku maaray kartaa cayayaankan iyo dhibkiisa ay iska yaray kartaa oo basashaadii uga yaray kartaa. Dabcan waxaa muhiim horta inaad samaysid oo aad beertaada markasta cudur kastuu yahaba inaad la socotid inta uu yar yahay. Maxaa yeelay si saa'id ah ayuu hal mar u kori karaa. Marka waxaa muhiim ah inaad la socotid basashaada koritaankeedii hore ilaa bilowgeedii inaad beerta la socotid waxa isbedela aad fiirisid iyo siduu u korayo. Sababta asaa u sameynaysa waxa weeye haddii aad rabtid tilaabo inaad ka qaadid inta uusan maaragtay gelin meelaha luuqluuqa ah oo basashii caleenteeda u dhaxaysa oo waxba ka qaadi karin oo sulka agtiisa intuusan gaarin. Marka halkaas haddii uu gaaro suntii waxba dhexa kama qaadayso oo si sahal kuma gaaraysa meeshii. Marka sababta aad baaritaanka marka hore u sameynayso oo ilaynaysa taas ayaa ka mid ah. Waxyaabaha kale aad samayn kartid waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo sticky yellow traps inaad isticmaashid ama kala kala way leedahay inaad isticmaashid. Maxaa yeelay midaan waxay kuu sahlaysaa inaad ogaatid horta intooda tirada badan leh oo socota oo duulaysa inaad ogaatid iyo inay midishaba oo qabataba. Marka waxay ku tusaysaa taas ay kuu sahlaysaa inaad maamusho oo dhibkiisii aad yarayso. Haddii marka aad hesho badanaa hadda sibaa loo qiyaasaa mararka qaar 3 xabo mararka qaar 5 xabo haddii aad ka hesho
halkii geedba oo ay ku jiraan, markaas waxaa muhiim ah inaad maaragtay suntii aad raadsato oo aad buufiso, maadaama haddii aad u sugto ay sii badanayaan oo ay saa'id noqonayaan oo markaas dhibaato weyn ay keensan karaan. Inkastoo ay jiraan basallo u dulqaadan kara xitaa ilaa 45 haddii ay dul saaran yihiin u dulqaadan kara inkastoo ay jiraan, laakiin waa muhiim inaad maaragtay inta ay yar yihiin aad suntii lasoo baxdo oo aad iska daaweyso. Sticky traps-kan marka oo la isticmaalayo waxaa loo isticmaalayaa marka ayaga kaliya ma ahan xataa white flies-ka, leaf minerska iyo aphids-ka iyo thrips-kan aan ka hadlaynaba intaba waa loo isticmaali karaa oo waa lagula dagaalami karaa. Marka midabka la isticmaalo oo waraaqda ahna geedaha qaar cayaanaadka qaar waxaa loo isticmaalaa yelowga iyo buluugga, midba nuuc ayaa loo isticmaalaa. waxyaabaha muhiimka ah oo kale oo laga rabo waxa weeye inaad geedihii biyo fiican aad siiso, maxaa yeelay geed stress ku jira oo biyo ay ku yar yihiin nafaqadiina laga dhuuqayo uma dulqaadan karo dhibkaas. Marka waa muhiim inaad maaragtay biyo fiican iyo nafaqo fiican aad siisid. Sidoo kale dabcan marar badanna waan ka hadalnay tan inaad maaragtay geedaha weedska oo loo baahnayn ama haramaha inaad beerta ka goyso oo ka baabi'iso. Waxaa kaloo samayn kartaa geedaha aadka ay ugu badan tahay oo aadka ay u dhooban yihiin oo maaragtay ay saa'idka yihiin populationka oo thrips-ka oo ku dhegan, waa jari kartaa, waa duugi kartaa, waa gubi kartaa kuwaasna si dhibkii uu usii yaraado. Neem oil iyadana waa isticmaali kartaa oo waa lagu buufiyaa ama caleenta inta la burburiyo oo kale ayaa lagu buufiyaa oo maaragtay cayaanaadkii lagula dagaalamaa uu ku jiro thrips-ka. Dabcan waa muhiim qofku markii uu isticmaalayo sunta inuu maaragtay dharkii weji daboolkii loogu talagalay wixii oo dhan inuu isticmaalo si uu maaragtay dhibkeeda isaga isticmaalo. Hadda qofkan aad arkaysid maaragtay waxba wejiga uma daboola, waxaa laga yaabaa inuu isticmaalayo geedo oo sida neem tree oo kale camal ah uu isticmaalayo oo aan dhibaato aan u geysanayn maaragtay jirkiisii. Laakiin markasta waxaa muhiim ah in qalabkii loogu talagalay inuu qofku uu xirto si uu maaragtay dhibaato aysan usoo gaarin. Marka waxaan rajeynayaa inaad video ka faa'iidaysateen. Insha Allah intaan video kale ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullah iyo beerasho wacan.